aad baa umahadsantahay walaal. Aniga qurbo baan kusoo koray, muddo badan baan joogay. Intaas oo dhan waxaan ka shaqaynayay, my backgroundkayga waxay tahay media. 5 sano ka hor waxaan bilaabay barnaamijyo Soomaalida isdhexgeliyo qurbada iyo dadka wadanka jooga. waxaa la yidhaahdaa Integration TV, isdhexgalka bulshada. So mashallah, so intaas waayo YouTube-ka dadka dhan iga barteen. waxaan leeyahay YouTube channel oo 50,000 subscribers ku jira, about 6 million views ah. mashallah, so Soomaalida oo dhan waxay rabaan wadankooda inay bartaan dadka qurbo jooga. anigana dadkan isku xiraa qurbaha iyo dadka. marka maxay kugu qaadatay abuuritaankaagii channelkan Integration TV iyo dabcan caqabado ma kala kulantay markaad abuureysay iyo ilaa hadda uu halkan soo gaadhay dad badan ay ku taxan yihiin? so TV-ga waxaan u bilaabay markaan Canada kusoo korayay. waxaan fahmay maan aqoonin Soomaaliya, dadka Soomaalida meeshaan ka imid, saasaan kusoo koray. markaan caruur dhalay baan fahmay haddii aniga caruurteeda waxaan baray hormay baranayaan. markaasaan dad badan baa jira oo saasoo ah. so markaasaan iska bilaabay, waxaa idhi sababtay tahay caruurteeda inay wadankooda bartaan, dadkooda, afkooda, and then inay ogaadaan Soomaalidu waa dad wanaagsan iyo wadankan ka nimi waa wadan wanaagsan. so anaa 30 sano qurbo joogay, soo laabtay intaasaan ku bilaabay showga. hadda horta waxaad ku sugan tahay gudaha dalka, Garowe ayaa timid, waxaad kaloo hadda joogtaa Jubbaland, xamarna waa tagtay, marar badanna saasoo kale waad samaysaa. socdaalkaaga wadanka waad kusoo laalaabato, maxaad ka samaysaa? barnaamijyo noocee baad hadda samaynaysa? hadda waxaan ku noolahay magaalada Kismaayo. waan soo laabtay, qurbo waan ka soo laabtay. inta badan waxaan arkay hadda 16 magaalo oo Soomaaliya ku saabsan. maasha Allah, wadanka waxaan jecelahay inaan arko magaalo walba, because dadka waa kala nooc. sometimes dad keliya nahay, dhaqanka waa kala nooc, luqadda waa kala nooc. so meel walbaan tago waxaan barnaamijyo ka duubaa dadka isbartaan. dadka Soomaaliyeed hadda 30 sano burburkii iyo wixii dhacay waa dad kala fogaaday. isdhexgalka bulshada waa loo baahan yahay inay dadka ogaadaan walaalka oo xaggaa jooga iyo walaasheeda xaggaa joogta waa dad isku mid ah. hadda marka qurbaha si toosaad usoo macaasalaamaysay oo macnaha wadanka degantahay? magaalada Kismaayo ku noolahay. masha hagaag, qorshahaaga muxuu yahay marka hadda? barnaamijyadaadii waad sii wadaysaa dabcan? hadda barnaamijyo badan baan soo wadaa oo ku saabsan barwaaqada wadanka Soomaaliya oo dhan. hadday tahay caafimaadka wadankeena taalo, hadday tahay waxbarashada dhalinyarada oo waxbartay, just waxay ku saabsan tahay wadanka waxa wanaagsan. insha Allah waxaan rabaa inaan adduunka dhan Soomaalida meel jooga inay bartaan wadankooda si fiican. waxaan haysanaa wadanka ugu wanaagsan adduunka, anagoo Soomaaliya ma arkayna waxaas. maalin walba hadda markaan badda aado Kismaayo waxaa idhahdaa maasha Allah, alxamdulilah, ilaahay nimcaduna siiyey ma garanayno. insha Allah barnaamijyadan soo gelin doono cuntada, caafimaadka, hawada, ina dadkan tusno wadankeena. haddii aan ka shaqeyno waa horumari karnaa. intii aad ku jirtay barnaamijyadan aad samaynaysay Integration TV iyo showyada aad soo saaraysay, wax caqabado ah oo aad kala kulantay ma jirta oo aad hadda nala wadaagi karta? waxyaabihii aadan ilaawi karin oo wax kuugu xasuusta badnaa? aniga gabar baan ahay. inta badan gabdhaha Soomaaliyeed waa taqaanaa media kuma jiraan in badan. so challenge-ka badan aniga la kulmay waxay tahay dad badan baa ku quureen cilmigaa leedahay iyo waxaad baratay iyo waxaad sameynaysay. dad badan ma fahmayaan hadda waxaan sameeyo. but insha Allah aniga waxaan rabaa taariikhdeeda in hadda maaha, maybe markaan dhinto oo markaan weynaado oo dadka fahmaan. maasha Allah, maanta barnaamijyaan haynaa YouTube-ka ku jira oo wadankeena qurux badan yahay, oo wax wanaagsan laga daawanayo, oo wax fiican laga sheegayo. Google hadday sawiro wanaagsan laga hesho, Integration TV video wanaagsan, intaasaa muhiim ah. dadka Soomaalida ma fahmaan. wadankaaga haddaa caayaysid, qurun ka qoraysid, hadda internetka waa village waa dadka dhan baa arki kara waxaas. so waa inaan wanaag wadankeena ka sheegnaa. challenge badan baan la kulmay. kelmadda naag ka dhig aan la soo baxay waxay ku saabsan tahay challenge-ka badan aan soo maray. dad baa rabay inay sameeyaan markaan Soomaaliya iman jiray, markaan gobollo kala tegi jiray. dad baa ii diiday inaan wax duubo.
qofka uma joojin waan wada barnaamijkeena ilaa iyo hadda wadankayga ku noolahay alxamdulilah. So dadka waxaa u sheegaya dhegeysanaya qofna joojina jooyinkaaga hor u socda dhexda xidha waxbarta adduunka laga tegaya maxaa ka tegaysaa waaye. aad iyo aad inta badan markaad soo dhigto boostiyada hadday tahay twitterka ama facebooka social media oo dhan waxaad isticmaashaa halkudhig ama hashtag aad leedahay naagis ka dhig ereygaas bal tafaasiil ka bixiyo waxaad ula jeeda. naagis ka dhig iyo nin ka dhig waxa waaye ereygan waxaan ka maqli jiray hooyaday waxay oran jirtay markay 8 gabdhood bay dhashay maasha allah. So markii wax noo dareyso kashira gala wax naagis ka dhiga weelka dhaqa waxaas aniga waxa u bedelay naagis ka dhig wax barto dhexda xidho adkee wax baro because gabdhihii Soomaalida waaniyo wiilasha waxaa loo leeyahay wiil ka dhig warayaa unaga noqo qof kornay gabadh Soomaaliyeed gabadhaha inay adkaadaan inay wax bartaan guri waa ka adkaa caruurtada waa ka adkaan kartaa ninkaaga maasha allah ka dambeyn kartaa tacliina waa baran kartaa qof ku waaniyo gabdhaha Soomaalida waxaa la jiro gabdhihii Soomaaliyeed hadda intaan Soomaaliya waxaan fahmay 8 saacadood 9 saacadood maalintii kishida ku jiraan kishida waa lagu jiri karaa gabdhihii waa inay guriga waa in laga shaqeeyaa muhiim waaye. gabdhaha Soomaaliyeed waa inay daalaan inay ka fekeraan tacliintooda hooyo wax baratay caruurteeda wax bari kartaa hooyo wax baratay caruurteeda wax bari kartaa. insha allah waxaan dadaalaynaa inaan barnaamijyo u sameyno dumarka Soomaaliyeed say fikirkaa la wareegaan nolosha maaha iska soco nolosha waxay tahay caruur baan dhalaynaa caruurta maxaan uga teginaa maxaan ku kordhinaa siday u korayaan. insha allah next kadig waa intaas faafata dhexda xidha gabdhaha Soomaaliyeed. ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysa maxaad jeceshahay oo dhaxal noocyo baad jeceshahay inaad uga tagto ummadda Soomaaliyeed oo bari ka maalin lagu xasuusto hadday tahay inaad buugaag qorto hadday tahay inaad documentary dhaxal galaho qarniyo jiri kara aad samayso ma kugu jira fikir noocaas ah oo barita ka maalin laga dhaxli karo. waxaan xasuustaa 6 sano ka hor markaan barnaamijyada TV-ga Canada ka bilaabay ummadda cadaanka dhan oo Canada ku nool aan ku tagay Soomaalida waxay yihiin waxay bartaan dadka wanaagsan. waxaan xasuustaa markii ugu horeysay aan Soomaaliya dadka ugu qosjinay Soomaaliya mataqaanid dadka Soomaaliya waxay ugu dhageysanayaan gabar qurbo kusoo kortay baa tahay markaasaan oran jiray maanta ma fahmaysaan waxaas aniga taariikhdeeda waxaan rabaa inay dadka fahmaan qof qurbo kusoo koray oo Soomaali ah waa Soomaali dadkaas waa dad nadiif ah dad wanaagsan hadda dadweynaha oo dhan wadankooda way rabaan inay yimaadaan kuwii wax bartayna cilmiga u keenaan wadankooda. so yaa soo dhaweynaya haddii qof walba Soomaali leeyahay Soomaali midkii Soomaali kuma hadashid yaa soo dhaweynaya dadkan. so taariikhdeeda waxaan rabaa insha allah in dadka ogaanaan dad badan oo qurbo ka yimid soo celinay oo cilmi leh wadankooda wax tari kara iyo dad wadanka ku nool oo raba inay wax bartaan oo horumaraan wadankooda. insha allah waa dadaalanaa hadda dad badan baa soo laabtay alxamdulilah markaan arko youtube-keega dadka wareysiga ka qaadayo dad aan bulshada baray. so maaha nolosheeda aniga waxaan ka fikirayaa caruurteeda markay weynaadaan inay dad wanaagsan ka arkaan TV-ga wax wanaagsana soo gelino waan nacay qarax iyo balaayo laga hadlayo Soomaalida iyo negative-ka waa inaan positive-ka badinaa inaan wadankeena wax wanaagsan ka sheegnaa inaan dadkeena wax wanaagsan ka sheegnaa nin walba wuu ogyahay wuxuu yahay haddii aan caayano ismaynano Soomaali baan nahay aniga ismaynana wadankeena anaga ismaynana. ma dhici kartaa marka ma kugu jirtaa qorshaha inaad tababar siiso sidaan u fakarayso oo kale si ay ugu fakeraan wariyaasha ka shaqeeya gudaha oo laga yaabo inaysan fursado badan u helin tababaro kor lagu qaadayo tayadooda wax soo saar in loo sameeyo ma kugu jirtaa adiga qorshaha inaad ka qayb qaadato oo aad ka caawiso sidii ay tababarada aad qabto iyo aqoonta aad leedahay aad wax uga gaarsiin lahayd wariyaasha kale ee gudaha gabdho iyo wiilalba ha ahaadeen. hadda barnaamijyo waana sameeyaa hadda intaas for volunteer baan ku sameeyaa Jubaland TV gabdho iyo wiilal badan hadda waxaan bilaabanaa tababarka wareysiga say u sameeyaan kamarada say u qabtaan maaha nolosha just adiga waxaa baratay qof kale a wax sii bartay baa ka wanaagsan. so insha allah waxaan rabnaa programmo wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed u sameyno Jubaland TV ku saabsan kasoo bixi doona iyo showgeedii oo weekdays jimcaha umaanaya kasoo bixi doona bisha 6 ah.
so insha Allah dadaalina tacliinta waa ina qof kale u kufisa adigana taas wax u baranaysaa